waxaan agteeda fadhiyo waa Misiwol alxamdulillah way noo soo nabad noqotay هاي أصحاب تحالة معاني أصحاب ما سنتين عليه لها أنت كرو كربوتي أنت عن كرو كربون با ددنا وحيو ملايين برانكي ددنا وحيو ملايين محالي هذا الشيك سدح بري ما أنت كنت هاي عاوز يكون هاد قلبت إلهي نسو سمع لي ماشي عن كهل يا صور كقلدان اللي جود بناي مقالة مقدشو هديل وقعدنا إنه بين كشجعنا أنا قلبت كين أي دعوين دونه حالة ريسكي أو حالة نفتين هجلنا والدكيننا هؤلاء شيدنا وحير أو قصر الأملين يسي أنت محكمة الجورجي إن هبلاية دشي هبلاية سنة شن سنة حرق يا لولي أنا أنت سايطلع بوم 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 السلام عليكم صاحب الملك ساتوكتان سكستو مقلك مقالك جدين سوغاري بالك دغ داون إنسان وجهنا كشاعر شيكي ولكن شاعر شيكي كسر هذا برنامج كده أنت برشيد هذا كوهاي وأنت صاحب عندنا برنامج كده فضل سبسكرايب صار channel كي سو كله اللي مقالك كان سيو قار صاحب بل أنت جماعة وناس صاحب الملك ساتوكتان هذه اللي هاي فضلك جماعة إليه إن هالشيء وهيك حتى بقى برا برشيد ساعدي قدام بيسيدا لوجا بعد جو بي سوحن كأي بوق أي قيلة جبر داس كوري درتيت أي gabadhii soo hadashay iyadoo dhaawacyo wajigeeda ay ka muuqdaan hadaba dad badan ayaa arinta gabadhan ku wareeray inkastoo xogaha qaar ay sheegayeen in familkeeda xirtay hadana arintaasi waxay gabi ahaan balaashay markii iyadu muuqaal iska soo duubtay kadibna ay soo gelisay baraha bulshada iyadoo waliba uu jirkeedu dhaawac ka boqdo hadaba arintan oo dad badani ay ka walwaleen halka dad badani u arkeen wax iska normal dadka aan barankiyadii iyo sheekooyinkii balaayadii lagu yaqaan ay baraha bulshada ku wadaan ayaan hadana intaan muuqaalkeeda in la wadaagin waan clipkan idin soo gudbin ayaan markii hore waxaan rabaa in kasto clipkan ay sabarteeda soo gelin hadana clipkan intaan la wadaagin ay soo duubtay oga ay macnaha arintaasi ku muujinayso in dib ugu soo laabtay hawada dib ugu soo laabatay oo aysan hadda cidna gacan ugu jirin intaan idin soo gudbin ba waxaan rabaa clip aan aad u soo dhaweeyay oo aan aaminsanahay hadii dhalinyarta Soomaaliyeed ay sidaan oo kale iyagu u noqdaan kuwo sharafta iyo dhibaatada iyo waxa loo geysanayo wadankooda sana u ilaashtaan in ay Soomaaliya mar horumar gaari lahayd clipkan waa madaxweynihii TikTok Bilal Bushaawi oo koor inta gabadhan soo hadlin digniintii ugu dambeysay u diray bal muuqaalka waxaan wada daawan waxaan raali gelin ka bixinayaa sawirka qaldan ee laga gudbinayo magaalada Muqdisho in ay tahay wax been abuur ah hadii la ogaadana inay been ay ka sheegeen annaga laftarkeena ayaa dacweyn doono magaaladeena in been iyo propaganda iyo aftuub aan jirin in laga faafiyo annaga ayay dambi nagu tahay waana sheegaynaa waana ka hor imaanaynaa qof walba oo arrinkaas ku lug leh waxa leenahay hal la joojiyo haday baranka tahna gabagabeeya hadii aad gabagabeyn weydaan annaga ayaa waxaan sameey doona inaan idin soo eedeeno laamaha amaankana idin ku soo dacweynay insha Allah wiilkaas dad badan baa xalay jaaifeenayay oo u qorayay madaxweynaha isku malaysa marna isku leeyahay xaqiiqatan kaalin fiican ama shaqo fiican buu hayaa hadalkiisana dib baan u dhigi doonaa waxaan rabaa markan inaan idin soo gudbiyo gabadhii muuqaalkeeda oo dib hawada ugu soo laabatay hadaba waxa la kaga baahan yahay gabadhan inaad body language wax leeyahay ku sameeysan gabadha sida aragtaan ba muuqaalkeeda intaan idin soo gudbin wajiga oo xiran halkaas qaybta sanka ah wax la garaacay amal faashad baa aga xiran laakiin sideeda kala suuradeedu waa iska normal hadaba markaad muuqaalkeeda dhageysataan baa waxaan rabaa inaad fikradiina nala wadaagtaan ku dhawaad hal maalin iyo dhowr saacadood baa la baadi goobayay bal maxay sheegtay الله وبركاته لما أنت تيك توك كوجرتو إن السلام يا وحاك أكتيد فرديو ومسيول الحمد لله ونوصل نبض نقطي وحي سو جاري وحي دبو سو جاري وحي داوع سو جاري معنا قوم بعدين كسو هاد لدونه لكن إيضا نبض قبته وينو معدي هي أصحاب تحالة معاني أصحاب ما سنتين عليه لها أنت كرو كربوتي أنت عن كرو كربون با ددنا وحيو ملايين برانكي ددنا وحيو ملايين محالي هذا الشيك سدح بري ما أنت كنت هاي عاوز يكون هاد قلبت إلهي نسو سمع لي ماشي عن كهل إيو وحاسو دن أنا قاعد دبك هاد الدونو وأنا dareemi kartiin qof dhibaato aragtay iyo qof farxad iyo kibir ku jirtay inaysan shaqo shaqo isku lahayn ilaahay mahadiis ilaahay uun baan uga mahad celin karnaa qof bil aadan oo maanta garab nagu siiyay soo hiritaankeedana ma jiro anaga iyo ilaahay subxaanahu ajiib horta muuqaalkan kama hor dhacayo oo jawaabtooda waan sugi doonaa waan idin soo gudbi doonaa hadii ay baraale ka noqdo laakiin waxaan leeyahay jawaabtiinu mid lagu qanxaan noqoto ha isku dayeen inaad qalbiyada
dad badan oo Soomaaliyeed aad ku ciyaartaan isku diinaa sharafta caasimadda ummadda Soomaaliyeed aad ku ciyaartaan horta gabadha face mask baa loo xiray waxyaabaha muuqaalkan aniga shaki gal xitaa face mask baa loo xiray face mask waa laga yaabaa in dhaawacyo wajigeeda ka muuqdaan saas darteed lagu xiray inay jirdil kale ka muuqdo laakiin ma fahmi karo wuxuu qofku face mask la xiran karo isagoo oo loo baahan yahay dad badan ay ka walwalayeen isagoo loo baahan yahay dadku tuso hadii jirdil ama cadeymo soo gaareen arinta gabadhan aniga sidaan xogta ku xalay oo aan arinta hadda kor aga hadlaba waxa la ii sheegay in dad familkooda markii laamaha amaanka la wacay arinta la weydiiyay inay dhaheen familkeeda baa gabadhan xirtay oo sida meel dhaqan celis ku geystay hadii arintaasi suurtagal tahay oo gabadhaas meel dhaqan celiska ama familkeeda ay geeyeen ay dib aga soo baxday waa wax ay ku qanci karaan ama laama amaan ha noqoto ama caasimadda ama dadku waxay ku qanci karaan laakiin arintan haday xaqiiqo noqoto inay wali ku ciyaarayaan gabdhahan ama gabadhaasba ay dadka ka dambeeyaba ay ku dheelayaan caasimadda ama ay arintaanba ay u sameynayaan wax baranki ama wax qosol ah runtii waxay u muuqataa inay noqon doonto sheekadii ahayd wax aad dhuuso moodid ayaa saxara kugu noqon doon caasimadan oo amaankeedu ay u xil saarihiin ilaa iyo dhowr qofood in amnigeedu sugaan oo siyaasadda diidan dalka ay ku hardinayaan haddii aad go'aansanteen inaad baranki ama qosol aad ku sameysaan oo muddo 3 days hadda sida dareemayo ama dharkii dhalinyarada ahaa ee madaxweynaha TikTok oo Bilal Bashaawi oo ka hadlayay haday arintaasi dhacdo wali waa leedin baqa ani aan toosh kuma ifinayo waan ka naxayaa laakiin waxa idin leeyahay xaaladina aad ka doontaa jawaabtiina soo socota marka jawaabta soo socota oo aad soo duubay doontaan ha noqoto mid ay dadku ku qancaan ha noqoto mid ay dadku ku xaqiiqsadaan wixii dhacaanay xaqiiqo ahaayeen ha noqoto waa in la talinayaa waa tala in siinaya muuqaalkayga hadda daawanaysaan war gabdhow gabdhaha iyo gabadha muuqaalkaas arinta ku saabsan tahay gabdhaha sameeyo war arintan haddii ay noqon weyso arin ay dadku ku qancaan xaaladiina waa halis arintan kale waxa lagu maseystaa muddo dheer oo xabsi in garkaafka loo galo waayo caasimadii dhammeed baad waxaad ku rideen sharaf dhac iyo in meel dadka lagu afduubtad ka dhigteen waxaad ka dhigteen meel bahla galena okay haddii arintii jirto oo dhacday oo ama familkaaga ku afduubto meel dhaqan celis ah kugu xiro ama qolo kale ha ku afduubato ha lagu soo helo meel laga soo helo haday dhacdo waa wax caadi oo normal oo adduunyada ka dhaca in qof afduub loo geysto caasimaddiina way ka dhacday dabcan dadka ku shaqada arintaas baaraya hadii family noqoto waa noqotay laakiin hadii ay familka laftirkooda haday noqoto in ku afduubtay ay laftirkooda wax laga weydiiyay in la amaanka soo ogeysiiyeen marka caasimadda loo eego marka dhalinyarada marka arintaan oo kale marka ku dayso doontaan aga sii digaya ee rabtay inay hadda kadib barankiya sameeyaan waan la waayay waa dhumay waxyaabahan oo kale challenge ka dhigi doona war waxaad dhuuso u maleeydiin iyo saxara ay ku noqon anigu taladaas aan siinaya xaalad riski oo halis naftiina hagelnina waalidkiina ha u soo jeedinina wax yar oo qosol u maleynaysa inta maxkamad lagu horgeey in heblaaya dhashay heblaaya saan 5 sano xarig yaa loo dhee ana intaas ay tala aad baan u waasanta daawashada muuqaalka waa shaash kale saayo